bismillaahi raxmaani raxiim wacan oo wanaagsan dhegaystayaal saaxiib yaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta caalamka oo xiliyadan oo kale aad ka daawataan warbaahinta Naafic Show. Iran ayaa maanta gantaalo cusub ku beegsatay 16 goobood oo ku yaala magaalada Tel Aviv sida uu sheegay raadiyaha ciidanka Israa'iil oo khasaaraha ka dhashay weerarkan ku soo koobay 3 qof oo ku dhaawacantay. Ciidanka ilaalada kacaanka Iran ayaa maanta ku dhawaaqay in howlgal gaar ah ay ka furin doonaan saldhigga Muwaqif al-Salti ee ku yaala dalka Jordan oo ay ku tilmaameen saldhigga ugu weyn ee ay isticmaalaan diyaaradaha dagaalka Mareykanka ee weerarada ka fuliya dalka Iran sida ay warisay Al Jazeera. Gudoomiyaha baarlamaanka Iran Mohammad Ghalibaf ayaa sheegay haddii dagaalku uu sidan ku sii socdo ma jiri doonto waddo lagu iibiyo shidaalka, sidoo kalena ma jiri doonto awood wax lagu soo saaro. Khasaaraha Netanyahu ma burburinaya oo kaliya danaha Mareykanka ee waa mid saameynaya dunida oo dhan ayuu leeyahay. Tony Blair oo ah ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Ingiriiska oo Mareykanka ku taageeray dagaalkii Ciraaq ayaa ku dhaleeceeyay dowladda hadda ee Ingiriiska inaysan taageerin waqti hore duulaanka uu Mareykanka ka wado Iran. Waxa uu yiri waxa ay ahayd duqeyntii koowaad marka uu bilaabay Mareykanka in la taageero. Waxa uu intaas ku daray haddii ay yihiin xulafada isla markaana ay yihiin tiirka ugu muhiimsan ee ammaanka waa inaad garab istaagtaan marka ay ku weydiistaan. Balse waxaa hadalkan si degdeg ah ugu jawaabtay xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Ingiriiska oo sheegtay inay si adag u diidan tahay hadalka ka soo baxay Blair, iyadoo tiri waxaa jira siyaasiyiin aaminsan in mar waliba ay tahay Ingiriiska inuu ku raaco Mareykanka wax kasta. Waxaa kaloo jira kuwo kale oo aaminsan in mar walba lala shaqeeyo Mareykanka xaalad kasta ha noqotee. Anigu ma aaminsani in midkoodna uu ku jiro danaha qaranka Ingiriiska. Mas'uuliyadda waxa ay ka saaran tahay dalka, waxay kala jeedaa ra'iisul wasaaraha dalka Ingiriiska waa inuu go'aan ka gaaro waxa uu wanaagsan shacabka Ingiriiska. Markii la weydiiyay haddii ay Blair ku tilmaamayso dabadhilif Mareykan waxa ay ku jawaabtay ujeedadu waa inaan hubino inaan wax ka baranay khaladaadkii ka dhacay Ciraaq. Waxa aan u maleynayaa in Starmer uu sidaas sameeyay. Dowladda Australia ayaa maanta shaaca ka qaaday inay dib u eegayso ay ka fiirsanayso codsiga ugu yimid dalalka Khaliijka oo ka dalbaday in Australia ka difaacdo weerarada ay kala kulmayaan tan iyo toddobaadkii hore sida ay sheegtay wasiirka arrimaha dibadda ee Australia Ben Wong oo xaqiijisay in Australia marna ka qayb qaadan doonin dagaalka ka dhanka Iran, balse ay sidoo kalena ka tagi doonin ka difaacidda xulafadeeda. Inta ay la hadlaysay barnaamijka ka baxa warbaahinta dowladda ee ABC News, wasaaradda difaaca Sacuudiga ayaa ku dhawaaqday inay saaki ka hortagtay weeraro diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo ku wajahnaa goobaha shidaalka ee Shaybaha ee ku yaala lama-degaanka Rub al Khali iyo xarunta diblomaasiyiinta ee ku taala magaalada Riyadh ee caasimadda dalka Sacuudi Carabiya.